يا أبليد هاي أنا قد كور سارن. السلام عليكم walaalo. السلام ورحمة الله. Horta waa salaam. Aduna abo maanta gabar baan raacay kowdhe oo waxaan u raacay hay'adii keentay wadanka qaxooti ee ma ayna forehead sababta waxaan maqalnay in dadka interviewashooda yacni hay'adihii keenay loo diray ma fahanteen marka uu tagnay in wiil Soomaaliya jooga oo meesha ka shaqeynayay iyo qof kale waxaa la joogay isagana loo yara waxay ka imaadeen qof imaaday 2025 January ma fahanteen oo interview loogu yeeray abo لا إله إلا الله محمد رسول الله. so marka walaal qof 2025 January imaaday ay kaxeeyeen maanta ma fahanteen oo appointment lahaa kadibna waxay dhaheen soo marka waan weydiin maxaa la soo dhaw waxay dhaheen waa laga kansalay shutdown wadankii galay soo waa run arintaas marka okay arintaas qofkii saddexaad oo aan ka maqlaaya maanta tahay horta xagee way meesha ka hadlayso Minnesota walaalo Minneapolis waxay ahayd loo tarinka ahayd tan ku taala 24 ka agtiisa loo tarinka wayaan 24 ka agtiisa marka dadkii I94 ka haystay ee interviewga lahaa ayaa maanta dib loo soo celiyay sax wuxuu dhahay wiilka wuxuu dhahay interviewgii buu lahaa oo appointmentiya waliba dadka wuxuu ahaa aan green card ka xareynin ma fahanteen marka maantagina waxay dhaheen wadanka shutdown uu galay soo ilaa martameen okay waxaan maqlay dadkuna way nasixi karaan haddii ilaah yiraahdo waxaan rabaa inaa arrintan fahantaan kaysaska waa labo dadna waa darbi waaye maxkamadda degdega loo soo geliyey dadna waa I94 dadka haysta oo qaxootinimo wadanka ku imaaday oo uu Trump dhahay waxaa dib loogu celinayaa interview ayaa dib loogu celinayaa marka waxaan ka hadlaynaa waa dadkii la dhahaa Operation Paris interview dib loogu celinaya lahaa maanta waxaa wararka nagu soo gaarayaan in UCIS Immigration Office-ka USCIS-ta ee Minneapolis in ay maanta ay dadka dib u soo celiyeen ay kansaleen interviewyadii because shaqaalihii ka shaqeynayay in ay meeshii walk out ka sameeyeen oo ay ka tageen waxay ahaataba waxaa hadda isa soo taraya wararka sheegaya qofkii saddexaad oo noo confirm gareynaya waaye dadkii I94 ka interviewga lahaa in ay maanta dib loo soo celiyay oo la kansalay xataa wuxuu dhahay waxaa laga yaabaa in saa ay kuba istaagtaba inay saa ku istaagtaa laga yaabaa waa laga yaabaa 9% buu dhahay inay sii socoto waa macquul laakiin interviews in istaagi doonaan buu eegaysaa haye waa gartay marka dadkaas hadda adiga qof aad taqaaniyo maanta aadayo waa ku jiraa soo maha maanta lahaa maya gabarta waxaan u raacaan ku dhahay yacni inay ka war doonto oo yacni hadda interview iyo ay wax ku lahayd xaggaas yacni loogu soo diray warqadii abdheeda u doonatay meesha gabadha ma fahanteen soo markaanu tagnay meeshii dadkaasaanu kula kulanay wiil ka shaqeynaya Soomaaliya iyo qof kale oo waxay ka imaadeen meesha interviewga soo marka waxay dhaheen waxaas in la joojinayo way agtahay sababta maanta qofkii aan ka xaynay waa soo noqonay waxba ma jirin saas noo sheegay marka okay waa abo waxaa kaloo sheegaya gabar akaasi lahay ayaan dhawad waxay interview waxay appointment lahayd 4 bisha ma fahanteen oo dadka darbika ahayd individual lahayd marka si fiican u soo martay inkastoo ay dhahday in zoom ku jira aad iyo aad buu ii kadeediyay batri wuxuu qaylinayay hanooga baxdo wadanka ma rabno waxaas buu dhahayay batri laakiin alxamdulillah u soo dhamaatay warqadna waa la soo siiyay oo ay ku qoran tahay positive ah waa la soo siiyay haddaad rabtid gabadha waa kugu xiri karaa waa joogtaa markeeda xidhan ku siin gabadha u baahanta haye bay u soo xiro loo baahan yahay u soo xir thank you so much haye ku socda qofka xiga update maxaa noo haysaan hello Nasrina kor saaran wax update ma haysaa salaam walaalkay ay salaam maanta gabar walaashay raacay waxa u raacay qoladii iyaga ahayd balan bay lahayd markaa tagna meesha maxay ahayd caadi bay bareysteen sideedii hore kale way soo daayeen ma fahanteen gobolkee way walaal
Minneapolis. Minneapolis ballanta caadiga oo ICE lahayd ها way soo marka martay way soo caadi noqotay dhib ma jirin dad badan baa sii galayay kasoo baxayay dadka way soo deynayeen marka aniga waxaas leeyahay problem hadda saa u weyn inuusan jirin baa u maleynayaa okay masha Allah maadaama dadka ay soo fasaxayaan marka update-kaas idin haye oo aan huba oo xaqiiq ah thank you so much waa mahadsantahay 100% markaas adin dhalinyaro Uber iska wata wuxuu leeyahay war waxaan loo baahnaa naga wad yaa waxaan loo baahan naga wad are you serious my brother see ku dhahda waxaan loo baahan naga wad yaa qofka u arka isaga dhibkii haysta dhibka asaga haysta kaliya in mataqaana focuska la saaro oo ummadda kale dhibkooda aan u muuqanin waa nooc min xaasidnimada kamid ah weeyaan okay haddii dhibkaaga kaliya waa u malaynaysa inuu yahay priority mar walbo oo dadka kale haddii la caawinayo hooyo caruur haysata hooyo mataqaanaa gaariga ka halaabay haddii mataqaanaa organizationkii caruur drugska mataqaanaa isticmaalaya la dhaqayo la nadiifinayo patient ku dhageysata alla adahay hoos ku soo qorayso scam ay ku soo qorayso maxaa lagu samaynayaa waa lagu blogayaa okay laakiin blogga aan sameeyna maxaa waaye waa blognaa 24 hours waa laga qaadaya kadib maya weligaa kuma jiraysid trust me okay platformkan wuu naga wada dhexeeyaa kuma jiraysid waa laga qaadaya laakiin inta barnaamijka u socdo waa gafaysaa maxaa dhacay qof guest u gafaysa oo dadka caawinayo ma fiicno okay taa marka waa halii xalay ma aragtay ugu jiray waaye inta aan ma aragtay seexan inaan dhaharbay marka soo dhawaada insha Allah taala waxaan rabnaa inaan update kala qaadano waxaan ku bilaabaynaa warkii ugu fiicnaa maanta uu ma aragtay ninka la yiraahdo Tom Holmes uu yiri okay ninka ICE u xil saartay gobolka Minnesota maanta press conference uu qabtay muxuu yiri heshiis baan gaarnay waana bixina gabi ahaanba waa bixina laakiin meelihii xabsiyada iyo meelihii ay ka qaraaban jirtay weliga dawladda federaalka dadka criminalka ay ka qaban jirtay wali waa ka shaqeynayna ay dhaheen soo ma garan laakiin dadkii iyo qabashadii iyo waxaan waa bixin now arrinkan ninkan Tom Holmes la yiraahdo waxaa madaxweyne u ah Donald Trump ayaa madaxweyne u ah amarkiisu ku shaqeeya okay marka ilaa ay cadeyn la arko oo la yiraahdo haye gawaaridooda waa bixeen diyaaradii fuuleen baagoodii waa loo qaaday waa tageen markii la yiraahdo markaasa ay xaaladdu maaragtay sugan tahay some suspicious is going on but inshallah we're gonna see it hadda saasay dhaheen balaakiin waxaan rabnaa inaan fiirino inay dhab tahay inay been tahay inay run tahay okay arrinkaa muhiim weeyaan marka waxaan rabnaa walaalayaalow update-ka inaan kala qaadano war gobolka aad joogto magaalada aad joogto maxaa ka socdo arrinta darbi kabood kaliya ma aha okay waa inaad fikirtaan fikirkiina balaariya fikirkiina waxa loo socdo darbi kabood ma aha dadka I-94radii ay interview lagu celinaya gobolada qaar Soomaalida citizenka aan raba in xaaladooda la ogaado dadka green card holderska green card ka maqnaa every situation Soomaali saameynayso ayaan u baahan inaan xaaladooda ogaano oo aan kala war qaadano okay hal isku badnaado yaan la aamin inay baxaan laakiin markay indheheena aan ku aragno shanta indheheena aan ku aragno ayaa aaminina insha Allah markaas aaminina marka waa idin soo qabanayaa haddii Ilaahay yiraahdo update kan bilaabeena mar dhow waxaan aniga xiranayaa saani maqlo baalkii headset-kiga xiranayaa baalkan dhagihii buu iga xanuujiyay ma fahanteen dhagihii ayuu iga xanuujiyay bahalkan marka walaalayaal soo dhawaada meel walba ay joogtaan shaashada markaad ku rudaan 25 waa la bilaabayaa ama 30 codkii bal maqla hadda wali ma hadlaaya bismillaahir rahmaanir rahiim wali ma hadlaaya wali ma la maqlaa wali oh shit hold on guys bismillahir rahmaanir rahiim wali maqlaa soma good ma sha Allah okay good dadka la soo qabanaya bismillaahir rahmaanir rahiim war soo dhawaada Soomaaliye soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhawaada soo qabano maxaa abdeedo haysaan xaaladda ka warrama alayhi salaam waraxmatullah warwaa salaam wa salaam warniyo thank you so much community-ga shaqo fiican baad u haysaa
ما شاء الله loo kala qaadanayo wax yar idinku darsanayaa arrin baan rabaa inaan idinka dabageeyo shalay anoo gurigeyga iska joogo wala cadaana oo socota igu soo gargaraacday haye qofka soo galaya qofka muudka gal okay walaalo muudka gal qofkaasoo please haye walaalo horta xagee joogtaa gobolkee Minnesota reer Minnesota ahay haye marka cadaan baa igu soo garaacay tartiib meesha ka fiiriyay waa arkay inay dad caadi yihiin gabdho waa ka furay waxay ku dhaheen niyo raale oo waxa rabnaa inay ku weydiino gurigan aad degantaa xaaladiisa ka waran haye marka ma waxaan ku iri ma wax dhibaa jiro haye wax ma soo maqasheen oo arabtaan inaan idinkaga warramo haye marka wax specific ah raadinayseen ma jiro idinka ilaa ani inta ii imaata xaaladda ka waran hadday dhahdaan xoogaa wax ii sharaxa marka waa dareemay dad caadi iska socday inay ahaayeen oo guryaha dhan ay garaacayeen marka waxaan ku iri waxay dhaheen niyahow macnaha gurigan ma walaalo muud gal maxamedow muud haye ku soco walaalo captain sorry about qofka oo kala ku maleynaya okay ana mood kale isaaraha okay marka wax dhigo oo soo maqashayna jira ila wadaagaysaan ani ilaa hadda waxa ma maqalay shaqan ka imaaday inta badan guriga ma joogo wax dhigo ma ka dhacay meeshaan waxa deebiyo macnaha gurigan ice ma soo galaan ma araga intaan jooga hadda wali nimankan intay magaalada qasayeen ma arag waxay ugu dhaheen ma ogtahay gurigan company-ga iskale in uu ice collaboration la sameeyay ma la socota information-kaas ma heshay markaasaan ku iri maya ice hadday rabaan gurigaaneeto si oromariga u soo geli karaan uu dhahay sababtoo ah company-ga gurigan lahaa wuxuu u ogolaaday ice inay guryahooda dhan geli karaan oo cidda ay rabaan marka annagana arrintaas ka duuleynaa saaradeedana meeting leenahay walaalo hadda ka soo qayb gali kartaan waa idin baahanahay dheen soo buuxiya arrintaana rabnaa inaan loo yaro u qabsano maadaama guryahan kira ku degantiin oo lacag ah ka bixisaan ma aha gurigaaga property-gaaga in lagugu imaado oo wixii raba laga samaysan karo company-gana ma ogolaan karo gurigan waa ka kiraysateen lacagana ku degantiin xagee way ku yaala guriga shay walaa waa Sherman company-ga la dhaho waa Sherman wuxuu collaboration la sameeyay ice so marka hadaya marka waxa dhageysanayay yarka la dhaho magaalada Jamal Minneapolis Sherman meel walba ku yaalaan guryahan dabaqadan dheer oo sida xataa iyaga iskale Sherman la dhaha company-ga iskale waa gartay so marka hadaya waxaan ka maqlaayay yarka Jamal Usman oo dhahayo nimankan way baxeen laakiin ma bixin istaraatiijiga bedeleen uu dhahay oo waxay heshiis la galeen xabsiyadii iyo state-ki iyo meelo badan oo heshiis la galeen nimankan in dadkaba si hoose wuxuu dhahay xataa city hall-ka iyagoo dhar caday joogaan uu dhahay oo aan ku arkayo dhahay ee dadku qabanayay marka nimankan ma bixin istaraatiijiga bedesheen shirkadaha guryaha leh iyo xabsiyada iyo state-ka way la heshiiyeen nimankan meel u socdaan male walaalo meeqo qof ay ahaayeen dadka ku imaaday saddex gabdhood ay ahaayeen marka maanta miya markay ku imaanayaan maya shalay meeqa sac camal galabtii adiga around 5 PM ay ahayd ilbaabkii ugu soo gargaraaceen marka waa ka furtay waa banaanka u istaagtay waa ka furay gabdho cadaan ay ahaayeen oo saddex shirkaasna wuxuu dhacayaa by the way warqadahan ka qaaday adreeska iyo meesha ka dhacay shirkaasi Saturday-da walaalo ma sha Allah horta warqada horta ay soo dirtaan jeclaan lahaa lambar ma ka haysaa gabdhahaas iyo shirkaas ku yaawaan kontaktigooda ku qoran shirkaas waxa lagaga hadlayaa ice company-yaasha la galay collaboration-ka oo u ogolaaday waliba company-gaas oo kale oo gurigaas iska leh aan degannahay waa qalad qof lacag xaafadda Soomaali badan ma degan Soomaali badan baa degan waa area soo dhan Sherman guryihiisa oo dhan waa hatta sida dabaqada dheer isaga iska leh soo mooga company-gaas ale Sherman la okay marka horta hal mid aan rabaa inaan cadeeyo fiiriya company-ga guriga iska leh waa private company wuxuu dhihi karaa soo gala oo office-keena lease office-keena imaada parking lot-keena imaada
laakiin guriga aad degan tahay fasax uma siin karo qolka gurigaaga adiga kuu kireysan oo nambarka furahaada aad ku furato waxaa lagu soo geli karaa gudihiisa waa judicial warrant in maxkamad laga haysto judge laga haysto saxiix walaa kan apartmentiga iska leh walaa ownerka adiga ogolaanshaha la'aantaada lama soo geli karo laakiin laabiga haddii lagu dhex fadhiyo laabigi ilaa waa fahmaya it's a big concern waaye waa fahmaya big concern weeyaan marka laakiin adigana ogow dadka kale ee meesha deganna ha ogaadaan xuquuq ayaad leedahay rights aad leedahay gurigaaga dhexdiisa adaa iska leh cid kula leh ma laha marka albaabka ha ka furin cidna ha ka furin gabdhahaasna waxaan jeclaan lahayn shirka ay qabanaya inaan ogaano iyo lambarkooda iyo xogtan haddii Sherman Apartments waxaa fiirisaa yani meesha ka dhaca adreeskii iyo nambaradooda iyo wixii dhan ku qoran usuallyna areadaas way wareeg guryo badan shalay ilaa iyo hoos way joogeen laabiga wayna ka hadlayeen xaafadee waaye anaa sii dartegan ii bili baan teganahay xaafadee waaye Sherman Apartments Sherman Apartments waa badan yihiin Sherman company waa qaanini isku geemni muxuu isku company yihiin laakiin Sherman Apartments waaye and wiilku wuxuu sheegaya actually review gaada fiirisid online maxaa waaye cusrin waaye because gabaraaba sheegaysaba inay like dadka oo maxay ahaydee people of color dadka maxay ahaydee minority cusrin ay ku yihiin there's a lot of comments cusrin inay yihiin ku qoran wow I know arrinta Sherman xaafadda inuu kala saaro sug waa kala helaynaa sug gacal sug wax yar ninka Cabdiqaadir ha ku socda hay maxaa dhehaysi xaafadee waaye siyadar miyaa anuu siyadar baa deganahay ii bildin baa deganahay ma siyadar baa soo xaafad kale Sherman gurigiisu waa badan yihiin okay haye Mr Captain tee waxtan aad deganta adiga kugu imaadeen macnaha waxaan ka hadlaa in general waxa dhilka kale waa company-ga لازم مارا gurigu yahay specific guri ma aha company-ga hadduu dhilka qaatay guri kasta uu leeyahay qol hadda ka soo gasho laabiga waa imaanaa waana ka qabsanaya fiiriya waxay hal daqiiqo siiya raali hada arrinkan waxaan wax hore u dhacay weeyaan fiiri history-ga markaa fiiriso waxyaalahan akhrina waxaa ka mid ahaa targetinka noocan oo kale ah in African Americanka muddo lagu sameyn jiray ilaa hadda xataa lagu sameeyo in bil shirkad dhan oo apartmentiga iska leh inay heshiis ku galaan inay mataqaanaa ay dadka dhibaateeyaan marka haddii shirkaddan ay run noqoto oo ICE ay corporation la sameynayaan ay u ogolaanayaan inay guryahooda dhan ay access u leeyihiin waa khatar meesheeda sababtay tahay hal ama laba gaar ama saddex gaar meesha iska dhigtaan ama dadkii weligood guriga